بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعده درسي هو سؤاله سي كان هذا إنه آخره إنه خميس دم إنه كده إن شاء الله بإذن الله يا حسكوي دين تو أول لا بحدث من آخرين جرنمان تصدق حديث بينه كده إن شاء الله حديث بينه آخرين دورنا بإذن الله يعني قاعدنا الحديث التاسع حديث كسجالات وحديث أبي هريرة وحديث متفق عليه بخاري مسلم بإسلام فقسيه وصحيح وإيه عن أبي هريرة وحلا قولنا يا عبد الرحمن بن الصخر الأورنجري مقعيسة واسد اللو بدنيها مقعيسة نسدها رضي الله عنه قال وحير الصحابي قاسي سمعت وحن مقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يقول أورنيا ما نهيتكم وحل علي وحيانا ذكر أبي عنه سقى حقي سبا فاجتنبوه كفقاد وكدير هذا وما أمرتكم وحيانا ذن أمري به إسقى فأتوا منه إسقى واحد كلك على ما إن الله لي أنتي استطعت ما دودان حي علي فإنما أهلك لما هانا وحا هلاقي الذين من قبلكم كويدين كيدكوه الرئي ويهودي نصارى يديمه نقوه الرئي وحا هلاقي كثرة مسائلهم سؤاله ذا فربدندد واختلافهم إيا خلاف كودو على أنبيائهم أنبياء ذا خلافين رواه البخاري ومسلم حديثك وحديث هذه أدوين النبي عليه الصلاة والسلام وحنا ذن أمري عفوا وحنا ذن كريابي لما أنتي كديراada maradii la yiri waxaas waa la reebay waad ka dheeraanaysaan waana xadiiska ay u cuskadaan culimada muslimiintu markay ka hadlayaan cilmiga usul fiqhiga iyo diinta sida loo fahmayo ahkaamta looga soo dhaxbaxayo xadiiskan wuxuu kamid yahay xadiista laga fahmay nahyigu inuu keensado fasahaad bimaana hadii wax la reebo hadii cibaado la nahiyo ama muamalaad si dadku u dhaqmaan la yiraahdo waxa sameeynina waxa ka dhalanaya inuu shaygii la iska reebay isna fasahaadayo aan la tirsan karin bimaana cibaada la reebay waxa la yiri cibaadada ha sameeynina ya hayeelina la yiri sida ha u cibaadeysanina hadii sidii loo cibaadeysto la inaga reebay bimaana qofkii sameeyay daalun buu ka qaaday waxba uga dhalan maayaan waxa la inaga reebay hab dhaqanka qaarkiis مثلا ribado kala la inaga reebay waxa la yiri ribaha ku tacaamulina hadii ba ay dhacdo qof muslim ah inuu dambiga galo oo ribadii sameeyo oo guriga ku iibsado ama gaar ku iibsado marka koox dambi buu galay taa khilaaf kama taagna laakiin dambi ha gale wixii marka isagu uu sameeyay ee mulkigiisa ku soo wareegay malay wala oran kara guriga hebel baa iska leh ribaha ku iibsaday gaariga hebel baa iska leh mulkigiisa ma noqonaysa oo haduu ka dhinto ma laga dhaxlaya ma sadaqadaysan kara qof ma siin kara يعني ما ركتي الله المستعان ما إجاري كرا عد ما كسي يبين كرا يعني ملكي جي سمت حديث كانوا حكوا وركا حديث الله عز كذا شيء هدي للريبه إن وحي كذا شيء أمرك في السهادي ربا لا ينقر ريبي ربا دي رات كي كذا شيء وحلا كلا يبسدي وضبطنا أدوات قاريك يبسدي أماد جروك يبسدي وفي السهادي حكم الشرع شرعي قاعد سومت السماء وقاعدة أمرك علماء إرادة النهي يقتضي الفساد نهي يقول كان صداه فساد بوكنس يعني وحي ما ترسميه مثلا النبي عليه الصلاه والسلام جزاك الله خير النبي عليه الصلاه والسلام وحي لا نكاح الا بولي غور ما جيرو الا ما ان ولي له لمويه وحديث صحيح يا حديث صحيح كبا سو قد marka hadii qof dumar guursado isagoo aan weligii soo marin aabihi iyo walaalkii iyo dadkii la rabay in la weydiisto qoftan dumarka mas'uulka ka ahaabaan la weydiisan يعني waxa maartay sidii Soomaalida odayadii hore sameyn jireen oo kala ama dadkii hore uu masaafeystay wax masaafada leeyahay waligeed uu kala cararay meeshu waligu joogay kobanaawn oo kale way hadda kobanaawn buu ka tagayaa alba kula gabadh aadaya ama audience ama magaalooyinka kale nin sheekhu u geenaya wuxuu leeyahay gabadhii waligeed lama hayo oo waa fog yahay oo maartay masaafo maartay buu jira waxa laga yaabaa marka ninkaas inuu yiraahdo mar hadii aan waligii joogin fa sultaan wali man la wali lahu عدي مركا أن والدك يشوفين مركا قاضي أما شيخ أما عدة مركا ولي ونقص مركا ساكم هري. قرقص كلام عن صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي مركا وفسهات قفكو هدو أجي هاي إن ولي الآن أنا يحمي هالسمين ودبدنا صدا أو سمايو وحوي قرقص حكم الشريعة قرقص مركا باطل وي لكن هدي أنا أجين أما
jaalikaha iyo ama maaragtay nim u haysto inuu diinta garanaya uu fatwo khaldan siiyay taasiyada mas'ala kala weysay dadkeeni hore u badnaayeen marka ما نهيتكم وحل يالي وحي على ذكر ماذا وحل إرادة إن شاء الله مربع نحفظ إيو قواعد اللغة العربية بلابي دونا ماذا وحل إرادة ما موصولة وحي نفا إذيسا عموم وحي فإذيسا يعني وحكستي فإذينيسا مركز معنينيسا مركز وحي نغنيا ما شيء اللي يالي شيء نهيتكم على ذكر عنه إساق حقيسا فاجتنبوه كالإرادة وحي دونها نغضي أما هاي إرادة أما هوين هذا أما عبادها كنت حدناضو ama arrimaha adduunyaha ku xidhnaada wax aliyaal wixii aan waalidin irkahana waad ka haraysaan lama soo kala reebin marka wama wax aliyaal iyo wixii amartukum waalidin amray bihi isagana fa'tu minhu waxad kala kaaleedaan ma in aliyaalay intii sadactum aad awoodi kartaan amarkii inaygu marka kala jaad wixii la ina amray inaan la nimaadna maxay u baahan tahay qudra iyo istitaaca wax culimadu inaynu awoodi karno inaynu sameeyno waxa lagu yiri tuko qofka hadii baanu ma tukan karin miya salaadii laga rabaa maya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sabirtu bi Allah miir la yahay miyu soo gudagalaya waa qiimo salaata ma soo gudagalay maayo waxa la leeyahay qofkaasi ma awoodi karo ya xoolo ma haysatid aad zakada ku bixiso miya laga rabaa inaad zakada bixiso waa qiimo salaata wa aatu zakata miya soo gudagalay maya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha macna marka amarka waxa u shardi ah in la yimaado in la awoodi karo nahyiga laakiin shardi ma u tahay in laga tago in la awoodi karo maya saga shardi uma maxaa yeelay ka tagiddu waxa kala jaada wax la imaanshaha iyo wax ka tagidda wax ka tagiddu iyada uma baahna xoog iyo shaqo iyo cilmi iyo aqli toona uma baahna yani baasifkaagi sidaad ahayd ahaw weey macna hadii lagu yiraahdo waxa sameeynin macna waa sidaad ahayd ahaw waxa lagu yiri koobka halka ayaa la qaadin بمعنى سيدي حالتي aad ku jirtay ku jir laakiin maalinta lagu yiraahdo qaad maxay u baahan tahay oo lagu amro waxay u baahan tahay xaaladii aad ku jirtay wax ka baxsan bay u baahan tahay inaad soo socoto oo gacantaad ku qaado hadii marka aadan awoodi karin marka ilaa xaaladda marka ka bixiso xaalad kale galayso inaad awoodi kartaa hadii marka aadan awoodi karin dad lagu gumaray saadafta marka sharcigu wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay amrayna waxaad ka awoodi kartaan kala kaaday waana naxariista iyo raxmadda diinteena iyo fudaydinta ay noo fudaydisay la inama oran illa bi illa waxa la inay yiraahdo hadaad awoodi karaysaan wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam fa inma ahlaka waxa halaagay alladina min qablikum kuwa idinkeeda ku horeeyay kathratu masaa'ilihim su'aaluhooda faraha badan iyo waqtilaafuhum ala anbiyaa'ihim nabiyadooda khilaafeen wala ba arrimada culus tan damba garanay in anbiyada la khilaafo waa dambi weyn nabiga maxamed calayhi salaatu wasalaam nabiyadu u fadli badan khilaafka isaga la khilaafaana uu ka dambi weynaanaya khilaafka nabi kale la khilaafay ama nabi Muuse ama nabi Ciise ama qoomkoodu markay khilaafeen waxa ka dambi weyn khilaafka nabi maxamed la khilaafay maxaa yeelay yaani waxa uu ka fadli badan uu ka darajo sareeya in nabiga la raacana waa sheega leen amray ya oo ilaahi subhanahu wa ta'ala amray rabbi ina leeyahay qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah hadii ilaahi jeceshiin nabiga raaca alayhi salatu wasalaam ya waxa lagu garanayaa jacaylka nabiga qofku jeceli waxa lagu garanayaa inta uu nabiga raacsan yahay alayhi salatu wasalaam oo nabiga sunnadiisii iyo hadigiisii iyo diintiisa markaa uu kaga dhaqmay taayada garanay laakiin arinta su'aalaha faraha badan waxay kamid yihiin wixii ummadii idinkeeda ku horeeyay halaagay maxaa looga jeedaa waxa ugu wanaagsan culimada sharx badan bay ka bixiyaan laba arimood ba ugu wanaagsan mid waxay tahay wixii la amray ee fududaa ilaahay amray ama wixii laga reebay ee fududaa la yiri ka hara inta ku gaabsan maayaan su'aalay sii galayaan waa sida qoomka reer banu Israa'iil la yiri intaad sac gowracdaan sacaas wax kamida marka qofkii dhintay ku dhufta isaga hadlaya qisada inaad maqasheen baa laga yaabaa qisada waxay ahayd suuratu baqara ilaahay ku sheegay waana qisada suurada loogu magac daray suuratu baqara waxay ahayd nin baa dhintay ninkaana waxa dilay in adeerkii yani waxa jiray hadan awalka qisada ka soo bilaabay nin xoolo badan lahaa iyo nin in adeerkiisoo faqiir ah ninka xoolaha badan lahaa cid dhaxalkiisa iskale waxa ugu dhawaan ninkana ilma adeerkiina faqiirka ah kadibna wuxuu yiri wallahi ninkaas deyntu ka dhimanayaba waa kugu dheertaay ma dishi ninkii buu dilay meedkiisii buu qaaday xaafado kale u geeyay dabadeedna nabiyullaahi Muuse u yimi wuxuu yiri nabi Muuse in adeerkay baa la dilay waxana dilay xaafada meedkiisa laga helay baa aanu haystaa
nabiyullaahi muusa calayhi salaam dadkii buu la hadlay wuxuu yiri midmidii salaama ya salaama ninkii gacantiisu marka ay ugu dhagto ayaa waxa weeye maaragtay noqonaya ninkii marka dilaaga waaba dhici weeyday arintii ya nabi muusa marka waa yaab ilaa ninkii wax dilay kuma jireen ninkii wax dilay qoladan la tuhunsan yahay ilaahay salaam uu kuma jiro waa ninkii halkan taagan ee nin baa iga maqan qisada marka adkaatay ilaahay baa maaragtay nabi muusa uu waxyooday waxa la yiri waxaad amartaa ninkan leh waxba la iga dilay iyo qoladan ay haystaanba waxaad amartaa inay neef saca gowracaan neefka saca marka qayb kamid ah ninka dhintay inay ku dhuftaan ilaahay baa soo nooleynay markaas uu hadlaya wixii dilay uu sheegay halkii ay hal sac oo sacyada kamid ah ay aadi lahaayeen waxay yiraahdeen muusa waxaad noo sheegtaa midabkiisu muxuu yahay ma lawnuha wasku adkeeyeen Soomaa markaas lagu sii adkeeyay midab aan heli karin oo adag baa loo sheegay markaas ay yiraahdeen waxaad noo sheegtaa nooc ay tahay ma kuwa beeraha falaa ma kuwa waxa way maaragtay Allah musta'an lagu waraabiyo maaragtay dadku ay maaragtay ka dhigtaan kuwa ay biyaha ku dhaansadaan miya muxuu su'aal badan bay la yimaadeen su'aal kasta markay la yimaadaan waa looga jawaabo waa lagu sii adkeeyaa marka macna waa macnaha soo wixii la idin ka reebay su'aal badan ha ka keeninay iskaga tag waxa tira khaas mar hadii waxa la iga nahiyay maxaa la iga nahiyay iyo maxaa ku sii jira iyo waxan kale ma la mid yahay iyo faraha ka qaad macna waa macnahaas arrinkaana macnaha labaadna waxa weeye wax ilaahay idin xalaaleeyay ilaa wixii diintu ay ka aamustay oo aan la inaga xaraameeyay asalahan muxuu yahay حلال قاعدة شرعية وحي رنيسا الأصل في الأشياء الإباحة شيء كست أصل كيس وحوينه مباحي وبناي وحا أدون كسارا وإنه وضع حلال وحي دينته حرام يسموه نك الشيخ يقول هذا وحا سوى حرام محادو قبها أنت دليل بعد قبها أنت محو حرام كويه بعد لذلك لأن أصل كوحوه إنه حلال يحي طيب مركا waxa kale oo la inaga reebaya oo la inoo diidaya waxdee asalkiisu xalaalaha in su'aasheena darteed lagu xaraameeyo marka aan dhahno wax xalaala kana muxuu yahay arrinkan ilaahay waa inaga reebay subhanahu wa ta'ala la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuukum wa ta'ala ilayhi subhanahu wa ta'ala labadaas sharax ugu wanaagsan labadaas inuu ka kaan hadii la ka dhigan sharax hadiiskan rawahu al-bukhari wa muslim baa wariyay macnihiisu waxa weeye saxiix weey عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال وحيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي قال مغلو أرمي ما شيء ألا لي شيء نهيتكم أن نكرب عنه استجب فاجتنبوه كالإرادة كفقاد وما شيء ألا لي شيء أمرتكم أن أمر به استجب فأتوا منه استجب واحد كلك على ذلك ما استطعتم تتكأوا ذكرتان فإنما أهلك وحالك الذين من قبلكم كوري كثرة مسائلهم سؤالوه ظفرها بدنيو واختلافهم على أنبيائهم خلاف أنبياء ضد خلافهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر حديث كتبنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحيري إن الله ربهان الربوين طيب ونكسين سادرت الله يقبل ما أقبله إلا طيب ونكسين مويه وإن الله الربي أمر المؤمنين توحوا أمري بما شيء أمري به شيء المرسلين كوي لصادري فقال تعالى إلهي وحيي اسقوا الرسول الله الله يا أيها الرسول كوي لصادري كلوا عنا من الطيبات وحياله ونكسن وحكعنا واعملوا صالحا وحو نكسن الشقية حلالنا عنا عمل صالحا الشقية الرسول انت سال امري انت ان لا يقبل مؤمنين ترى الله امري وقال تعالى ألا وحي اسقوا مؤمنين الله يا أيها الذين آمنوا كوا مؤمنين تأهوا إلهي الرميو كلوا عنا من طيبات ما شيء وناقياليه وحكعنا رزقناكم ولدكم إرزاقني marka xadiisku wuxuu ka waramayaa ahamiyada ay leedahay xalaal in la quuto xalaal la cuno aan xaraan la cunin ya wa asal kamida usuusha diinteena inuu qofku kimistiisa iyo waxa uu cunayo iska hubiyo yiraahdo ma xalaal ba waxa kan misoo maxay xaraam illa hadii qofku wuxuu cunayo ay xaraam tahay waxay u badan tahay cibaadadiisa deelan la aqbalin ya hadii wuxuu cunayo xaraam tahay quudkiisu xaraami waxay u badan tahay cibaadadiisa marka in la aqbalin النبي مركا وحو شيغ عليه الصلاه والسلام قصه ثم دبدنا ذكر الرجل نبي عليه الصلاه والسلام نبو شيغي يطيل السفر سفركو وكو ديراداي اشعث نينكاسو يعني waxa weeye maaragtay timihiisu ay kala yacsan yihiin aan shan laysnayn oo feednayn aghbara booraysan waa basaasaysan yahay waana booraysan ninkaasi yamuddu yadayhi gacmihiisu u taagaya ila samay xagga samada wuxuu leeyahay يا ربي ربي يا ربي ربي
إلهي ببريه سبحانه وتعالى ومطعمه وحو عنيا حرام وي وحو عنا حرام وي ومشربه وحو عبانا حرام وي وملبسه وحو قشانيا وهو جيسين حرام وي وغذي وحا لغسو كوريه بالحرام حرامنا لغسو كوريه فأنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب له لوغا أقبليا رواه مسلم حديث كان صحيح حديث كان wuxuu ka warramay ninka qisiisu cajiibta ninkan wuxuu kulansaday waxyaalo badan waxa kamid ah wuxuu kulansaday asbaabtii ducada lagu aqbali jiray in badan oo kamid ah baa ninkan ku rumowday marka koowaad waa nin musaafira qofku hadduu safar yahayna sida xadiis saxiix ku soo aroortay dacwadiisa waa la aqbalay ducadiisa waa in lagu dadaalo waqti qofku safar ka yahay inuu maxay ducaysto insha Allah saadarteed baa markaynu safrayno maxaynu ku bilownaa أذكار يدعينا كبرنا مركز قارقة فوشوا محل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين يا اللهم أنت صاحبه في السفر والخليفة في الأهل دعوين لا درب النبي اللي يسوع قولي عليه الصلاة والسلام مركز قفكو إنه كد عيسى اللو باهي سي أنتو سفر كي أنو إلهي الذكر كي سأوهل ما منا مركز ميل تاجا أتكب حي سنة وين الله أكبر ترى مركز ميل هو بضع أدمر سنة وين ترى محي سبحان الله يا الله أكبر سبحان الله يا marka ninkan horta waa musaafir qofka musaafirka dacwadiisa waa la aqbalaa koow marka labaad ninkan dhibaato ka muuqata waa basaasaysan yahay oo booraysan qofka haday dhibaataysan yahayna waxay u dhowdahay in ducadiisa maxay la aqbalo marka saddexaad gacmihiiba kor taagaya gacmaha kor loo taagana waxay kamid tahay asbaabta ducada lagu aqbalo waa nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yiri adoonka gacmaha kor igu soo taaga waan ka xishooda inaan soo celiyo sifran gacmihi farmaran inaan ku soo celiyo waan ka xishooda ba ilaahay subhanahu wa ta'ala marka iyaduna waa asbaabta maxay ducada lagu aqbalo ilaahay magacyadiisii buu ku baryayaa ya asmaadiisii wuxuu leeyahay inuu u dhawaaqayaa ya rabbi iyana waxay kamid tahay waxyaalaha ducada lagu aqbalo ninkaasi asbaab badan oo ducada lagaga ajiibi lahaa ayaa meesha taala laakiin lagama ajiibin saddexdiis ka muuqata lagama ajiibin sababtuna waa maxay wuxuu cunayaa xaraama wuxuu cabayaa xaraana wuxuu sitaa xaraana wixii lagu soo koriyay baa xaraana say marka looga aqbalaya ducadu marka sida nabigu sheegay kaleey salaatu wasalaam ad-du'a mukhul ibada wa ibadada dhuuxeedii way riwaayad kale ad-du'a huwa al-ibada ducadu iyadaba ibada labada xadiis mid wax laga sheega laakiin ala kulli macnaha waa saxiix ducadu yaani waa ibadada nuxurkeedii asalkeedii hadii nuxurkii asalkii lagu aqbali waayay sababtuna ay tahay xaraam oo cunay ama quutay wixii kalena min baabil awlaa wixii kalena waa ka saxag jiraan soomku waa ka saxag jiraa salaadu waa ka saxag jirtaa marada ducadii baa la yeeli waayay wixii kalena marka qofkeen lagu soo celiyo way u badantay marka waa asal usuusha diinteena kamid qofku inuu iska hubiyo maxaad cunaysaa maxaad cabaysaa maxaad gashantay macna yaani waxa way maartay maxaa xaraam maxaa xalaal inaad iska hubiso waa arin aad iyo aad muhiim jiddan waxa kale oo halkan ka faa'iideynaa laakiin inaga arrimahaas inay naga waaweynadaan baa suurtagal ah waxay culimadu ku sheegaan sababka iyo maanicu haday kulmaan bimaana sababtii wax laga qofka kan cibaadada ugu waajibays ama sababtii xukunkan u soo jiiday iyo haday kulmaan wixii xukunkan ka hor istaagay keeba xoog badan maanic xoog badan hadii maanic meesha yimaado khalaas ya waxa kulmay midalan qofka waxyaalihi salaada ku waajibin lahaa tusaale ahaan oo salaada qofka maxaa ku waajibiyaa إنه وقت يسوق له إنه معركة مكلف وياها إنه عاقل ياها إنه بالغ ياها إنه معركة وكا أسبابه هي شروطه صلاة الله ما لها مركز سوا حل لها هل مانع كلي وابا جبره ويحيضي طهارة ذي وكجبتي مين الله رنا يا مادام مسلمات هاي وعاقلة هاي وبالغة وقنقالي وصلاة وسوق شيء وقبل هذا يوجي سنكرتو وأيويسي سنكرتو وكان سمين كرتو وعورة هذا أستوريسو ومعركة وكا مين الله رنا مركز صلاة وكواجب ما هل مانع باكو فلان وحاصل إنسان بربرني يا مركز السبب كلمه المقتضي للحكم أو للفعل وحي حكم كما فعل كيني إيه وحي كلمه وحي ديدي واحد ديدي مركز حق بدن تا وحي لمي ده قفكي بابا وحبا كدعي بدعو يا قالمو صالحا إنه قفو قالمو كدعا محي كينيسا محي سببوته إنه محي دي قالوا وحوهم كدعو لكن كور مركز هدي مانع جرا وحي سكور تاغي هدو جرا كور كيف مركا حق بدن سو كي قالنimada keenayay iyo bidcada midalan iyo faasiqnimo in lagu xukumo iyo maanican isku hortaagaya keeba xoog badnaanaya marka kan isku hortaagaya xoog badnaanaya marka
لورن ما شركة بكون عدو مشرك أما بدعو كل عدو بدعي أما مارت فسق بكون عدو فاسق مرة مانع سكور تاجي يشرو أما واجاهل أما وا شيخ حب تأويلنا يا تصار واحد كسوق قاعد أكون حب علىها بريء وكذا إن إلهي غير كل بريء وام حي حرام كسوق هو شركي شركي قفك كل عنا والمقتدر الحكم أما والسبب قال لماذا كيني قفك مركا قال لما كل عام حون غنيا تقالب غنيا لكن هدوت شر مانع كور واو متأول وحب لي هاي آيات إيح عليهم ولا يحزنون إيو حب لي شنيا خلط بها هذا وحد لي شنيا وحب لي شنيا إذا فلت الدابة أحدكم بأرض ليس فيها أناس فليقول يا عباد الله أغيثوني حدث كاسو يقول لي شنيا هدي قف كين دابة كلنتو ملع الله كلنتو هي هذا الدومي له يو يقرقار حدث كلكم ضعيف لكن وحو كله ضعيف ما يا marka ninkii maadaama saaxiib shuba saaxiib ta'wiil yahay maanici baa jira marka hor istaagay xukunka in maxay lagu hufiyo waxaan marka kala saarnaa inaga ahlu sunnah waxaan kala saarnaa bayna al-fi'li wal-fa'il wa bayna al-'amali wal-'amil wa bayna al-mu'ayyan wal-'am waxay culimadu ku sheegaan qofka iyo ficilkiisu waa kala jaad khasab maaha ficilka iyo qofka in markastaba la isdul saaro khasab maaha adilla badan baa leedahay waxa u daliila laba tusaale loo dhawaan ka soo qaadayna insha Allah waxa u daliila منافق سو صلاه ما تكدو صلاتنا maxay kamid tahay waxay kamid tahay calaamadaha muuminiinta qad aflaha almu'minun alladheena hum fi salatihim khashi'un munafiqana maxaa la yiri salaada maaragtay aayadii soo qabo ee tilmaamaysa inay tukadaan wala yatun as-salata illa wa hum kusala yani aayadu waxay sheegaysaa inay tukadaan laakiin iyagu caajis ay tukadaan marka waxaan oraynaa mar haday tukadaan qad aflaha almu'minuuna weeyo oo waliibaaneen maya ficilka iyo faacilku marka qaar kood waxyaalo kale leexin kara jirka taas waa xagga wanaag xagga negative iyo salbiga lafteeda iyana nabigu wuxuu lacanaday kaleey salaatu wasalaam qofka khamriga caba muxuu yiri la'ana allah sharib al-khamr qofka khamriga caba ilaahay la'anado oo daabadii la soo saaray iyada waa malcuuna oo ka qaybinaya waa malcuun oo ma yani aad buu nabigu fogay kaleey salaatu wasalaam tayib nin baa jiray saxaabi oo khamriga ku ibtilaysnaa markaas nabiga loo keenay waa la jeeday markaas haddana loo keenay waa la jeeday marka afraad baa nin saxaabi wuxuu yiri la'anahu allah ma akthara ma uti ilaahay hal la'nado maxaa ka badan inta la keenayo nabigu muxuu yiri kaleey salaatu wasalaam la tal'anhu hal la'nadin innahu yuhibbu allah wa rasuluhu ilaahay rasuulkiisa wuxuu jecel yahay hal la'nadin hadda nabigu isaga la'naday ninkii khamriga cabay haddana muxuu yiri hal la'nadin maxaa yeelay waxa kala jaada xukunka guud iyo qofka gaarka xukunka la siinayo qofka gaarka xukunka sax qofka khamriga cabo malcuun laakiin waxa dhici karaya mid aan xukunkaasi ku rumoobayn oo wax u diidaya uu jiro مثلا inuu siyaalo kale oo iimaankiisu xoog badan yahay laakiin arrintoodna ay ka tahay maxay ضعف الايمان iyo waxa ay ku kalifi karaan marka masaa'il soo masaa'il waaweyn oo dhalinyaradu laakiin waqtiyadan day iskaga degdegaan laakiin u baahan in bal marka hore diinta la barto inta aan qadaaga iyo xukunka iyo dadka in la xukmiyo kaasi muxuu yahay kaasi muxuu noqon doonaa inta baabka la gaalo baabka ugu dambeeyay horta in diinta marka hore aad loo bartaa loo baahan insha Allah way aan abi hurayra radiyallahu anhu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri inna allaha rabbi tayyib wa wanaagsan yahay la yaqbalu man aqbala illa tayyiban wa wanaagsan ma wax kala ma aqbalo wa inna allaha rabbi amara almu'minina mu'miniinta wuxuu amray bima amara bihi almursalina waxa rususha amray faqala ta'ala ilahi wuxuu yiri ya ayuha ar-rusulu kuwi la soo dirayo kulu cuna min at-tayyibaati waxyaalaha wanaagsan wax ka cuna waxmalu saalihin amal wanaagsan la shaqeeyo halal quuta ta'ana lak alay ya وقال تعالى ربي وحي سوى مؤمنين الله الله يا أيها الذين آمنوا كوا إلهي رميوا كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم وحي أن ذكور رزقني وناقياله سوحك عنا يا حلال شقوطة إذن كنا قفكم مؤمن كامركا وحي الروايين نقضوا حلال قوطة ورع وحرام تسكيل عليه شقد حرام تاهي يعني ما ركت الله مستعان كسبك حرام تاهي وحيالا نسكيل عليه وحيالا إيمانك آتك أولا وعوي ثم دبن ذكر الرجل نبي قوح الشاقي نبو الشاقي عليه الصلاة والسلام يطيل السفر safarkiisu ku dheer yahay oo safarka dheereeyo oo maaragtay aad u dhibaataysan ash'ath aghbara basaasaysan oo booraysan yamuddu yadayhi labadiisa gacmood u taagay ila samaa'i xagga samada la ya rabbi rabbigayo wa mat'amuhu haramun wuxuu cuna haram way wa mashrabuhu haramun wuxuu cabaana haram way wa malbasuhu haramun wuxuu gashadaana haram way wa ghudhiya bil haram haramna waa lagu soo koriyay fa anna yustajabu lahu say looga aqbalay macna laga aqbali waayo macno أنا واحد ويه لقى ما أقبله
حديث كان واحد وريه رواه مسلم إمام مسلم أي حديث كان وري الحديث 11 حديث كوبي تبنات والحديث كم كدرنا خير القاسم كنت شوقنا إن شاء الله بالله تعالى توفيق وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته